markii aan rabo qofka dhalinyarada ah inuu ogaado xirfadda uu u baahan yahay inuu horumar ka sameeyo saddex waxyaabood ayaa muhiim ah inaad ogaatid. midda koowaad waxay tahay curiosity-gaaga ama falaadkaaga inaad raacraacdid. Curiosity-gu waxa weeye awood qofka riixaysa oo ku dhiirigelinaysa inuu halkan isku dayo, xagga wax ka qabto, xirfaddan inuu barto isku dayo, kulligoodna uu khibrad ka helay. Waxay u badan tahay inuu qofku ogaado skill-ka asaga ku habboon. tusaale ahaan haddii aad isku daydo graphic design, haddii aad isku daydo waxa la yiraahdo content creation, haddii aad isku daydo blogging, haddii aad isku daydo waxa la yiraahdo trading, haddii aad isku daydo waxa la yiraahdo anything, waxyaabo badan haddii aad isku dayday, waxaa laga yaabaa curiosity-gaagaas faraha badan ee meelaha kala duwan aad isku dayday inay marka dambe kugu hogaamiso mid ka mid waxyaabahaas inaad waxa la yiraahdo ay noqoto xirfadaadii. waxyaabaha uu jecel yahay inuu raaco waxay qofka ku hogaamisaa inuu ogaado qodobka labaad oo ah talentiga. talentigu marka xirfadaha laga hadlayo waa wax qofka u suuragelinaya in wixii asagoo aan dhib badan kala kulmin amaba aan ku dareemeyn boring ama caajis aan ku dareemeynin inuu qabto. tusaale ahaan dad baa jira design hadday dabcan inay sameeyaan ama graphic design-ka oo kale maantoo dhan boqolaal design oo samayn karaa isagoo aan wax dhibaato ah kala kulmin. saacado badan ayuu ku qaadan karaa. qof baa jira muuqaal samaynta sidaas oo kale ku ah, qof baa jira programmingka sidaas oo kale ku ah, qof baa jira tradingka maantoo dhan maaragtay trade gareyn kara ama maaragtay inuu chartiska daawado awood u leh. qofba waxbuu ku fiican yahay. qof baa laga yaabaa inuu maanta dhan wax qori karo. taas waxay ku tusinaysaa waxa qofkaas talentiga u leeyahay, xirfadda uu maaragtay uu ku dareemayo in aanu inaysan macnaha wax dhiban waqti ka qaadanaynin uu isku ilaawi karo. marka talentigaaga inaad ogaatidna waxay kuu horseedaysaa ayadana sidoo kale inaad heshid xirfadda kugu habboon. qodobka saddexaad oo kuu horseedi kara inaad xirfad kugu habboon doorato waxa weeye waxa loo yaqaano blue ocean and red ocean strategy. blue ocean and red ocean strategy waxaan ka wadaa tusaale ahaan markii aad magaalo joogto ama deegaan aad ku nooshahay waxaa jira xirfado aad looga baahan yahay deegaankaas. xirfadahaas dad badan kama shaqeeyaan, dad badan qayb kama ahan, dad badan oo qabta shaqooyinkaas lagama helo. markaas waxay ku noqon kartaa fursad aad ku ogaan karto xirfadda kugu habboon. haddii aad xirfadaha meeshaas ka bannaan u dhabagasho ama aad u fiirsato dabeetana aad mid ka mid ah ama laba ka mid ah aad isku daydo inaad barato kadibna aad baahideeda daboosho, waxay imaanaysaa in hadhowdii xirfadaas waxaas ay xirfad kuu noqdaan maadaama ay suuq haystaan. kadibna aad sidaas maaragtay aad ku gaartid meeshii aad ka rabtay oo ahayd inaad horumar ka samaysid. saddexdaas waxyaabood waa saddex waxyaabood aniga personally ama shakhsi ahaan aan u arkay igana saaciday xirfadaha aan bartay in aan yeesho.